السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد كستا oo daawatay sawirradii argagaxa lahaa ee laga soo qaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan jasiiradaha kaymaha leh ee dhulka Greega oo ay tahriib ku marayeen halkaasi oo ay sahaydi kaga go'day kadibna iyaga oo ku sugan xaalad adag sawirro laga soo qaaday lagu baahiyay baraha bulshada. qof kasta oo daawaday aad buu uga damqaday. jasiiradda Chios waxay ka mid tahay jasiiradaha waddanka Greega waana mid ka mid ah jidadka cadaabta ah ee 30 sano ee ugu dambeeyay ka mid ahaa khadadka laga tahriibo ee ay qaaradda Yurub ka beegsadaan tahriibayaasha dalalkoodii ka soo yaacay ee nolol raadiska ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay kuwa ugu badan. si la mid ah sida muhaajiriinta kale ee iyaguna nolol xumada iyo dagaalada uga soo yaacay wadamadooda sida Syria, Afghanistan, Iraq iyo wadamo kale oo ku yaala galbeedka iyo waqooyiga qaaradda Afrika. sawirrada 24 saac ee ugu dambeeyay la wareejinayay baraha bulshada ee muujinaya dhulka kaymaha ah ee buuraleyda ah ee dhalinyarada Soomaaliyeed ku baaba'sanaayeen qarkana u saarnaayeen geeridu waxa ay ku yaalaan jasiiradda Chios oo ah sida aan soo sheegnay marin ka mid ah marinada ay qaaradda Yurub ka beegsadaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee beegsanaya ama ku socda qaaradda Yurub. si aan haddaba xogo dheeraad ah uga raadino goobtan ay dhalinyarada Soomaaliyeed ku dacdaraysanaayeen halka ay juqraafi ahaan ku dhacdo sida ay tahay xaaladeedu iyo sababta ay u beegsadaan jidkan rafaadka badan oo lagu tilmaamo mid ka mid ah wadiiqooyinka ugu halis badan ee ay maraan muhaajiriinta qaxootiga ah halkaasi oo sanad walba boqolaal qof ku dhintaan ayaan mowduucan idinkula wadaagi doonaa. waa sidii aad inooga barateen in aan hadba mowduuc muhiim ah xogta ku duugan aan guntiisa ugu dhacno. jasiiradda Chios ama Chios hadba sida ay dadka qaar ugu dhawaaqaan waa jasiirad leh dhul kaymo ah iyo buuraley waxaanay ka mid tahay jasiiradaha muhiimka ah ee dalka Greega. waxa ay ku taallaa meel 5 mayl u jirta xeebta galbeed ee Turkiga oo ku dhereersan jiidda badda Aegean ama Aegean hadba sida loo yaqaano. waxa ay ka mid tahay koox jasiirada ah oo isku simay ama u dhisan hannaan wareeg ah kuwa ugu caansanna ay ka mid yihiin Psara, Chios iyo kuwa kale. buuraha jasiiraddan ku yaal waxaa lagu tilmaamaa in ay yihiin kuwa ka samaysmay fulkaanooyin waqtiyo hore qarxay ee sidaa ku noqda dhul buuraley ah. waana dhul carramadow ah oo leh dhir badan oo kaymo ah. badda iyo kaymahaas iskalena waa mid ka mid ah sababaha ay u soo beegsadaan muhaajiriinta Soomaalidu ka mid yihiin qarniyadii dhexe. iyo jasiiraddan Chios waa jasiirad ka mid ah kuwa ku dhaca badda Mediterranean-ka oo hoy u ahaan jirtay siraacaadkii ama dagaaladii qarniyadii dhexe. waxa ay muddo ku jirtay gacanta Byzantiniyiinta waxaana marar badan qabsaday Cusmaaniyiinta. waa dawladdii muslimiinta ahayd ee Cusmaaniyiinta inkastoo ay markii dambe ku hadhay gacanta Masiixiyiinta. waxa ku yaala qasriga dhexe ee loo yaqaan Chios. meesha ay tuuladu ku fiday waxa ay noqotay dhul baaxad leh waqtiyadii dambe waxaanay dhinac walba u dhaaftay derbiyadii ku hareereysnaan jiray qalcadaha jasiiraddan ku yaala gaar ahaan qalcaddii looga talin jiray oo la dhisay qarniyadii dhexe iyo xilligii Byzantiniyiinta ee dhammaadkii qarnigii 10aad. waa dawladdii Byzantine. dhismihii ugu horreeyay ee qalcad ah ayaa qarnigii 10aad laga dhisay halkan balse dadka tahriibayaasha ahi dhulka la degan yahay ee jasiiradahan way ka fogaadaan oo waxa ay maraan marinada badda iyo dhulka kaymaha ah ee jasiiraddan si ay uga baxsadaan ilaalada dawladda Greega. waxaana goobo badan oo tuulooyinka u dhow ku yaala xerooyin qaxooti oo ku meel gaadh ah. waxaanad arkaysaa teendhooyinka iyo buushashka ba'aha ka samaysan ee ay gabaadsadaan dadka tahriibayaasha ahi. balse goobaha ay sawirradan ugu dambeeyay ee tahriibayaasha Soomaalidu muujinayaan waa goobo ka fog dhulkaas oo kaymaha buuraleyda ah. waana halka ay sahaydii baad iyo biyahaba ahayd kaga goosatay ee ay qarka u saarnaayeen in ay ku dhintaan. maxaa Soomaalida jeclaysiiyey jidkan rafaadka badan in ay ka gudbaan oo in badan ay ku dhimatay? waa su'aal isweydiin karo. Soomaali badan ayaa lagu waayaa oo aan ilaa maanta la ogeyn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen halka kuwa kalena dirqi kaga badbaadaan oo u sii gudbaan dalalka kale sida dhinaca dalalka Balkaniska ama dhinaca kale ee galbeedka Yurub. Soomaali badan oo tahriibayaal ahi waxay jasiiraddan iyo kuwa la midka ah ee Greega ah ka gudbeen iyaga oo sii maray wadamada dhinaca waqooyi bari kaga beegan sida Albania, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Slovakia iyo wadamo kale sida Romania ilaa ay ka beegsadaan dalalka Scandinavian-ka halka qolo kalena galbeed qadar u leexdaan
oo ay Talyaaniga ilaa France ilaa UK sidaa ku soo beegsadaan. sanadihii ugu dambeeyey aad bay xaaladda jasiiradahan Greegu u sii xumaanayeen markii ay kumanaan tahriibayaal ahi ku soo fataheen, waxaana ka dhaca geeri xanuun badan iyada oo ay bad iyo berriba dhulka ku dhinteen haween, carruur iyo dad waaweyniba. gaar ahaan waxaa aad ugu leeday dhalinyaro fara badan, kuwaasi oo leh jinsiyado kala duwan oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. waqtiyada jilaalka ee xilliga qaboobaha ayay xaaladdu sii xumaataa, waxaana mar walba ka dhaca masiibo bani aadamnimo. welina dad badan oo tahriibayaal ah oo Soomaalidu safka hore kaga jiraan kama aanay waantoobin halaagan ay nafahooda ku biimeynayaan. heshiisyo dhowr ah oo dhex maray Turkiga iyo Midowga Yurub ayaanay waxba ka hirgelin, waxaana bil walba jasiiradaha Greega u gudba dad fara badan oo markoodii hore qaarkood soo mareen dhinaca waddanka Turkiga. Soomaali badan oo Turkiga ku tagay arrimo waxbarasho, caafimaad iyo xataa siyaalo kala duwan oo kale ayaa qaarkood waxa ay markiiba miciinsadaan in ay tahriibaan, jidkaasi halista badanna ay qaadaan oo u gudbaan dhinaca Greega, halkaasi oo wixii badbaadaa ay kasii gudbaan una gudbaan dhinaca iyo Yurub. dhowaan telefishinka Deutsche Welle ee dalka Jarmalka qaybtiisa samaysa barnaamijyada ama filimada dokumentariga ah waxa uu jasiiradaha Greega ee Chios ka mid tahay kasoo sameeyey filimo argagax ku dhaliyay cid kasta oo daawatay. wariye ka tirsan telefishinkan caanka ah ee Deutsche Welle ayaa Chios dhowaan kula kulmay wiil soo tahriibay oo Soomaali ah, kaasi oo ka mid ahaa dad badan oo jinsiyado kala duwan leh oo telefishinkaasi Deutsche Welle ama DW halkaasi ku waraystay. markii uu Maxamed oo 27 sano jir ahi uu yimid Greega, waxa uu ogaa in ay adag tahay in la tago ama loo soo gudbo ama loo gudbi karo si sahlan qaaradda Yurub, laakiin waxa uu rajeynayay ugu yaraan in uu ku soo dhawaado riyadiisii ahayd in uu mar uun cagta soo saaro qaaradda Yurub oo uu u haysto in ay tahay jannadii adduunka, oo uu ka heli karo shaqo iyo nolol wanaagsan oo u dhaanta shaqo la'aantii, busaaradii iyo nolol xumadii uu ku wajahayay dalkiisii Soomaaliya ilaa intii uu noolaa. marnaba muu filayn in uu xaalad sidan u daran kula kulmi doono Greega oo ka mid ah wadamada Midowga Yurub, ahna marin ay sii maraan dadka tahriibayaasha ahi. dhibkan lama filaanka ah ee uu Greega ku arkaya waa mid ka duwan wixii ay u ballan qaadeen mukhalasiintii dabada is haystay geeska Afrika ilaa Turkiga ilaa ugu dambeyn Greega, kuwaasi oo mid kastaaba u sheegayay wax beena, laakiin xaqiiqadu aad bay uga duunayd waxa uu hore u aaminsanaa ama ay u sheegayeen mukhalasiintii soo tahriibiyey wiilkan dhalinyarada ah. Deutsche Welle waxa ay Maxamed iyo koox kale oo tahriibayaal ah kula kulmeen jasiiradda Chios xagaagii hore. wariye ka mida telefishinka ayaa raacay safarkiisii dheeraa ee Maxamed. bishii Sebtembar Maxamed waxa uu ugu dambeyntii gaaray Athens oo ah caasimadda waddanka Greega. mid kale oo tahriibayaasha ahi waxa uu ka yimid dhinaca iyo dalka Kuwait. waxaa lagu soo koobay xaaladiisa magac loo bixiyey oo ah ninkii biduun, oo macnaheedu yahay dal la'aan ama waxba la'aan. inkastoo ay fududayd in uu magangeliyo qaxootinimo oo ku meel gaadh ah ka helo Greega, haddana taasi sarin uma aha oo ma doonayo in uu sii joogo xiro qaxooti oo Greega ku taala, maadaama Greegu aanu ahayn dal dhaqaale leh ama uu nolol ka heli karo. taasi ayaa ku khasabtay in uu jasiiradaha kaymaha leh sii dhex jibaaxo. in badan oo Maxamed iyo biduun la mid ah oo halkan soo gaadhay waxa ay diidaan in ay isu diiwaan geliyaan magangeliyo qaxootinimo, waxaanay ku riyoonayaan in ay si uun ugu gudbaan Yurubta kale ee qaniga ah sida ay aaminsan yihiin. walaalayaal, sawirada iyo muuqaaladii ugu dambeeyey ee baraha bulshada dadkeenu isugu dhaafsanayeen saacadihii lasoo dhaafay waxa ay noqdeen kuwo qalbi taabasho leh. waa masiibo ummadda Soomaaliyeed haysata meel kasta oo ay ku dhibaataysan yihiinna dhibkoodu yahay mid culus. rabbi waxaan uga baryayaa in uu badbaadiyo kuwan iyo kumanaanka kun ee kale ee ku dhibaataysan xaalad la mid ah xaaladahan oo kale, gaar ahaan xaaladan tahriibta oo ah masiibo ka mida masiibooyinkii ugu xumaa ee soo mara geygeenna. mawduucaasi aynu ku eegaynay jasiiradaha ama dhulka kaymaha ah ee ay dhallinyaradani ku sugnaayeen waa dhallinyarada Soomaaliyeed ee tahriibaysay ee aadka u dhibaataysnaa. intaas ayaan mawduucaas kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.